wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa gobolka Xaysimo ayaa si deeran loogu soo dhaweeyay degmada Xalin ee gobolka Xaysimo. Wafdiga wasiirka waxa uu helinayay mas'uuliyiin kale waxaana soo dhaweyn ballaaran u sameeyay shacabka deegaanka Xalin. waxa weeye degmo taariikhi ah oo istaraatiiji ah oo dhul ku taalacaan hadda gobolka furtid dadka aad u isticmaala Xalin iyo iyada tanaa soo horbaxaysa ma garanayaan ugu sababtu waxa weeye micnaheedu 300 sano u dambeeyay dad badan baa degay shaqaale ma jirteen baa degay oo nin weyn oo iskoolar ah daraawiish baa uga dambeysay xilligii dambe dawladdu dhalatay beeraha laga aasaasay waa meel durdura waana meesha u biyo badan Soomaalida marka la eego dalka kan waqooyiga dalka Soomaaliland dal meesha u biyo badan weey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda oo muddo ku sugnaa ayaan ku sugnaa degmada Taleex suu ku gol xaaladda deegaanka una ogaado baahida aad qabtaan deegaanku ku sugan yahay sida awgeed wasiirku muddo hadda halka minala joogay wuxuuna u gudgalayaa baahida deegaanka Xalin walba waan qoranayaa waa ku qanacsanahay Allahu dadweynaha deegaanka Xalmeed waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ahna afhayeenka xukuumadda mudane Salabaan Yuusuf Cali Koore waxaan ku leenahay ku soo dhawow deegaankaaga iyo dalkaaga waxaan aad ugu faraxsanahay oo mudane iyo marwo caruur dhalinyaro عقال وحجرت سياسيين وحنا قاعد وفرحنا إنه نويني وسيرك يجي وهراء وسيرك فيها ما ترى وسيرك والفافيت هذا كي يوعي wasiirka ayaa u mahad celiyay dadweynaha ilaa saaka taagnaa si uu soo dhaweyn lahaayeen wax badan ayaynu qabsan karnaa beeraley baati waxa ugu badan ee hadda lagu sameeyo wax tarka waxaan rabnaa inay beeruhu aad uga mid noqdaan bolosiga xukuumadda ee la fidinayo deegaamadan waa meesha kaliya ee hadda ku caanbaxday inay noqoto dhul beereed wasiirkii beeraha waad ku casuunteen iyo wasiirada kale deegaanka Xalin oo meesha Xaysimo oo raqasooranka u beeraha ayaan aad ugu soo dhaweeyay adkar caaqil maanta aad waxaan ugu faraxsanahay caaqilkii oo la socdo wasiirada la socdo madaxda la socdo saraakiisha la socdo culimada la socdo inta waxaan ku salaamayaa 14 wasiirku wuxuu kormeer ku tagay warshada sokorta taasoo uu sheegay in dhawaan dib loo kicin doono wasiirka kormeerkiisa si wata ayaa booqday beeraha deegaanka Xalin oo ay ku yaaleen beero aad u tiro badan kuwaas oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan wuxuuna wasiirku sheegay wasiirka beeraha uu dhawaan halkan soo gaari doono beeraha Xalmeed waxa asaasay Cali Gareed Allahu naxariisto ayaa markuu wasiirka beeraha ahaa laakiin hadda waxay qaadatay inay beero soo saarto ganacsi ilaa warshado sonkor ilaa nooc kasta waan ka warhaynaa inay beeruhu aad u badan yihiin laakiin dadka galbeedka Somaliland degan aad uguma qanacsana beeraha xagga jira iyo warshad sonkortoona marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in beero badan oo ilaa 330 beerood ay ku yaaliin deegaankan in deegaankan dadka af Soomaaliga ku hadlaa wada degan yihiin iyaduna wax la qarinaya maaho cooperations bay u bilaabmato xar bay u bilaabmato beero dawladeed oo dadku wada leeyahay ayaa wuxuu ka bilaabmay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyay kormeer kala duwan ku kala bixinayay deegaanada ka tirsan gobolada Sool iyo Xaysimo halkaas oo uu kurgelayay xaaladda deegaankaasi waa Farxaan Maxamed Caydiid TV-ga caalamiga Som News Laascaanood.